أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تفسير سورة البقرة آيات الله بقول يتضباطا يشن يدرس نكبل عبنا الله سبحانه وتعالى وحين قصوا والرمي وحبحنته iyo qiimaha ay leedahay iyo dadkii si xalaal ah wax u kasbaday ee sadaqaadka iyo khayrka la baxay iyo fadliga ay lahaayeen. markuu alle inooga soo warramay waxa munaasabadan alle uu ku xijinaya dad kuwa ka duwan akhyaarta, kuwa ka duwan oo qaab daran oo xumaan wax ku shaqaysanaya oo kasabkoodu kasab xaaraan uu yahay oo ribo ku shaqaysanaya, dhinaca kalena dadkii tamarta darnaa ee u baahnaa in la caawiyo iyagii dhiig miirata ku ah oo dulsaar iyo faa'iidooyin ka dulqaadaya ayaa alle subxaana watacaala uu ka warramayaa si ay u caddaadaan foolxumada kuwan iyo kuwii hore wanaaggoodii iyo sharaftoodii. alle wuxuu leeyahay aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya arriba, ribada kuwa cunaya waa ziyaadada xoolaha la saaro, laa yaquumuuna kici maayaan oo istaagi maayaan maalinka qiyaame qubuurahooda ka soo bixi maayaan ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabatuh, ilaa kamaa sida mooyaane yaquumu uu u kaco alladii qofka yatakhabatuhu uu legday ama uu derderay ashaytaanu shaytaanku min almasi taabasho waaliya uu ku derderay. daalika sababtu waxa weeye bisababi annahum sababtu waxa weeye iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa in kale maahee albaycu iibku midlu ribaa ribada oo kale weeye. marka waa isku mid ribada iyo iibkuye, maxaa kanna loo xalaalaynayaa kanna loo xaaraamaynayaa. wa axalla allaahu alle waa xalaaleeyey albayca beeca alle waa xalaaleeyey, wa xarama waa xaaraameeyey alribaa ribada oo taasi waa xaaraan, isku mid ma aha, saasay u kala duwan yihiin. faman qofka jaa'ahu uu u yimaado mawcidatun wacdi min rabbihi xagga rabbigii ka yimi oo waxaa kala hadlaya oo ka nahinaya ribada, fantahaa oo ka joogsada, falahu wuxuu leeyahay maa salafa wixii u hormaray ee hore wuu leeyahay oo laga qaadi maayo. wa amruhu amarkiisuna ila allaahi ilaahay xaggiisuu ahaadayoo cafiskana alle subxaana wa tacaala xaggii buu jiraa. waman qofka caada ku laabta ee ribadii dib u qaata oo ku noqda markii wacdi u yimi ka bacdi, fa ulaa'ika kuwaasi asxaabunnaari naarta asxaabteedii weeye, hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya oo weligood ku jiraya wey. aayaddan waxay ku bilaabatay tashbiih iyo suurad xumayn aad iyo aad bay u qiimo badan tahay xagga fahanka in sawir lagugu siiyo oo qof waalan oo khabti ku jira. khabtiga waxaa la yidhahdaa wax aan si aan habaysnayn wax marka u dhacayaan. khabd albaciir baa la yidhahdaa awrka khabdigiisa, waayo meesha uu dhigayo khufkiisa iyo jeenigiisa meesha uu dhigayo uma cabirna. marka qof iska dhacdhacayo oo meeshu cagta dhigayo iyo suu u soconaya aanay saxnayn. marka qofka surcu ku dhacay ee waalidu ku dhacday jinku derderay ma saxna qaabka uu shaqaynaya si caqli ku dhisan ma ahee, mar waa dhacaya, mar waa toosaya, mar waa galgalanaya, mar waa dhaqaaqaya, saasoo kale wey. xadiiskii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga warramay hurdada riyada uu ku soo arkay in badan oo ka mida barsakha xawaasheeda waxaa ku jiray waxaan tegey webi, markaas webigaasoo guduud ah oo dhiig ah, mise nin baa dhex dabaalanaya oo
markuu webiga qarkiisa yimaadaba dhagax baa lala dhacaya markaasuu dib u noqonaya markaas ayaan weydiiyey markaas waxa loo sheegay waxa la yiri qofkaasi ama dhagax buu afka u gelinaya markaas waa kuwii ribada cuni jiray marka qofka ribada cunaya sawirkaas uu leeyahay inuu calooshu weynaanayso oo ay miisaankiisii jirkiisa dhantaalayso oo dhacayo oo sawir noocaas oo ku imanayana waxa way tilmaamaysaa calooshu ribada iyo waxa ku cuni jiray baa weynaanayso oo naaxaysa kadibna balansiga jirkiisa baalumayo oo dhacdhacaya sidii qof jin dirdiray oo kale shaytaan maskuna waa taabashada shaytaanka waa waalidii weey sababtu marka maxay tahay ribada waxa lagu sheegay waxay yiraahdeen gaaladii markii iyagoo ictiraadaya oo ka hor imanaya ilaahay amarkiisa ribadu bay'u waa ribada oo kale xataa may oran ribadu waa beeca oo kale oo beeci asalka may dhigan sida ay ribada u aaminsan yihiin ribadii bay asal ka dhiganayaan beecan aad sheegaysaan waa ribada oo kale marka ribadu wax meel u yaala oo laga ma hadlaan oo laga ma taabtaan oo asala wax laga qiyaasta bay ka dhiganayaan marka waxay ku ictiraadayaan leeyin tan waa iib see marka tan loo xarimay tan loo daay Allah subhanahu wa ta'ala farqibu tilmaamaya ribo iyo beec isku mid maaha ribaduna waa shay xaraam Allah xarimay beecuna waa shay xalaal ilaahay xalaalay tasaawi isku sinaashana kama dhaxeeyo isku mid maaha beecu waa inaad xoolihii aad hanti iibiso oo maal ku iibiso ashyaa iyo shay ku iibiso alaab iyo wax la kala faa'iideeya meeshiya laakiin tan ribadu waa inaadan adigoo waxa aan bixin oo aan shay iyo alaabad iibisa jirin ba waxa bixinaysa baad lacag qaadaysa oo qofka fakhrigiisi iyo deyntiisa wax la'aantii ka qaadaysa oo carabtu ribadii ay isticmaali jireen caan ku ahaayeen ribal jaahiliya ama ribal nasii'a la oran jiray waxay ahayd qofku marka hanti la siiyo qofka faqiirka ah ee waqtigii loo qabtay uu dhamaado waxa la oranayaa ma bixinaysa mise waad siyaadinaysa marka hadduusan bixin karin uu siyaadinaya haddana ajashi waqtiga kala dhamaanaya rasuulana ma bixinaysa mise waa kordhinaysa ma waa kordhinaysa kadib halkaas ribadu waxay ahayd muddadaas iyo faqriga qofkaas in laga faa'iideysto sida daraadeed deyn kasta oo faa'iido yeelata muddada ku saabsan waxay noqonaysaa waa ribay noqonaysaa marka ribadii soo gelisay weey deynta ribada deynta gasha oo qofku deyntii marka uu bixin waayo in la intaas muddo aba lagu daray waxa lagu daray waayo waxa kale oo riba ah ribadii fadliga oo hantidii iyo maalkii isku mid ka ahay ribawiyaadka ah sida lacagihii sarifka dahabkii waxyaabihii makiilaadka ah ribadu gali jirtay in waxaas la kala badiyo ama majliska lagu kala qaadan waayo iyadana riba gasha sida daraadeed baabka ribadu waa baab aad u weyn weeye oo kutubta fiqiga iyo ahkaamteeda si weyn loogu faahfaahiyaa halkana cabsida weyn ayaa aayadani ayna gelinaysaa oo inaga bajinaysaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ribadu waa 70 qaybood aysaruha an yankaha rajul umma ta ugu dambiga yar ama ugu yari waxay la dambi tahay nin hooyadii u galmooday oo kale yani waa sida ay u weyn tahay nin hooyadii wax ka day u galmooday dambiga uu galay weynaantiisa bay la mid tahay ribada ta u yar ama inta ugu dambiga yar waxa kale oo la sii sheegay in iman doonto xadiiska Abu Hurayra Imam Ahmed warinayo yaati ala an-nas zamanu yaakuluna fiha riba dadka waxa ku imanaya xilli ay ribada cuni doonaan markaas waxa lagu yiri dadka oo dhan miya markaas man lam yaakulhu nalahu min ghibari qofkaan cunina boorkiisa soo gaaraya marka xilli ribo ayaa iman doonto nabiga ka sii waramay ribada waxa la xaraamay wax kasta oo ka agdhow iyo wadooyinka loo maro oo dhan baa xaraan la'ana Allahu aakil riba وموكله وشاهديه وكاتبه wuxuu nabigu عليه الصلاه والسلام ilaahayna caladiis waxay ku dhacday ka ribada cuna iyo ka wax cunsiya iyo ka labadiisa makhraati iyo cidda wuxuu kala qorto cidda ka shaqeyso dhan ayaa ribadaas hawsheedii lacanadaasi ay ku dhacaysaa sidoo kale wadooyinka loo maro ribada in la xeeradaysto oo wadooyin iyo wasaa'il iyo kaartooyin kale loo sameeyo oo ribadii laga gabanayo laakiin islayadii lagu isticmaalayo iyaduna ma banaana waa kii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam la'ana Allahu al-yahuuda ilaha yahuud buu nacdalay xurimat calayhim ash-shuhum baruurti baa laga xaraameeyay fajamaluha fabaacuha wa akalu thamanaha kadibna baruurti intay shiileen oo subag ka dhigeen bay subagii hadana iibiyeen markaas lacagtii cuneen marka waxaan cunayaan lacag baha ahaatee
laakiin waa un baruurtii laga xaaraameeyey oo ay subag ka dhigeen kadibna subagii ay iibiyeen intaas ay mareen dariiqaasi waxba xalaalayn maayo waa un iyadii bay cunayaan marka waxaasoo dhan in loo xeeladaystana waa la xarimay wey alla subxana wa tacala marka wuxuu leeyahay yamxaqu allaahu riba wayurbi sadaqaat yamxaqu allaahu alla wuu baraka tiraa arribaa ribada yunqis wuu nuqsaaminaya wuu tirtirayaa maxqiga waxa la yidhahda wuxuu markay tartiib intay u nuqsaamaan hoosu daadegaan ay salka isla tagaan marka ribadu ilaahay wuu baabi'inayaa wuu tirtirayaa wayurbii wuu kordhinayaa wuu ziyaadinayaa asadaqaati sadaqooyinkana alla wuu kordhinayaa wuu kobcinayaa wallaahu alla laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin mid kastoo gaalnimo badan oo qalbigiisa kufrigii iyo ribadii uu xalaashanaya ay ka buuxaan ahiimin oo dembiile ahoo ficilkiisii iyo hadalkiisiina uu ficil dembi yahay ilaahay subxana wa tacaala ma jeclo wey oo markaa ribadii ballantaasaa ka taalla ilaahay waa baabiinaya waa baraka tiraya maxqi baa ku dhacaya arrintaasina adduunkana waa laga tirtirayaa oo ribada ma barakowdo si kastoo qofka loo buunbuuniyo oo maalku is yihahdo waxbaa kuu kordhay oo ribadu waxbay kuu korkordhisay wuxuu ku socdaa baaba buu ku socdaa qofka ribada waxaa u dambeeya riba cunaha ah inuu xoolo yaraado iyo inuu hanti yaraado iyo in wuxuu ka baaba'aan meelo kale ay ka dalooshamaysaa haddaad aad ugu fiirsatana dadka ribooyinka isticmaalay dhibaatada iyo waxaa haysta waxaa haysta qof meherada ama dukaan weyn oo camiran haysta ama hanti badan oo muuqata haysta iyo ganacsi badan kadibna in yaroo ribaa buu dhex gelinayaa oo isleeyahay intaa ku qalad markaas waxaa arkaysaa marka dambe isagoo dayn loo haysto iyo isagoo rafaadsan iyo xaalado xunxun isagoo ku jira qof kastoo u fiirsadayna wuu arkaya qofka ribada cuna adduunka lagaga jaray marka ibn cabbaas wuxuu leeyahay adduunkana waa laga tirtirayaa yucdimu wuu waxwaasiinayaa aakhirana wuu ku ciqaabaya adduunkiina wax la'aan aakhirana ciqaab intaasay ribadu leedahay waa ballanqaad ilaahay amaa sadaqada ilahay wuu kordhinaya wuu kobcinaya qul laa yastawi alkhabiiثu waالطayibu walow acjabaka kahratu اlkhabiiث khabiidka waxa xun badnaantiisu haba ku cajab geliye khabiid iyo طayib ma sinna inta yare xalaasha ah baa fiican oo طayiba oo barako badan oo ilaahay kobcinaya kuu barakaynaya waxa faraha badan ee khabiidka ahina way iska lumayaan وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون زكاتك صدقاتك خيرك إلا الله ميا ربدنا إلهي أكتس وح زيادة معها سكست غفو سيادة وحكر بسو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل كان الله سبحانه وتعالى وحو أماني ذاتك مؤمنين تاهي عمل كوناك سنشقية أي ألا أمانية إيه ربدي يوحى إسكيتك إلهي وهو قان سمي إن الذين كوا آمنوا على الرمي وعملوا شقية الصالحات عمل لدون وناكسا وأقاموا الصلاة صلاة أوغا وآتوا الزكاة زكاة بحية لهم وحيليهن أجرهم أجر كودي كليهن عند ربهم رب قد أكثيسا وإلهي بمشقايد ذو أبضينا أجر بدنسينا ولا خوف عبسي معها عليهم دشودا وكبق ما يان وحكوه الرياء آخر ذودا ولا هم معها يحزنون ومرقون وأدون كودي يتعب كودينا iyo waxay adduunka ga yimaadeen iyo waqtigoodii midnana kama murugoonaya yaa ayuha alladina aamanu taqullaha wadaruu ma baqiya min arriba in kuntum mu'miniin aayadahan dambena sabab nuzuul bay lahaayeen sabab nuzuulkoodu waxa weeyaan markii ribada xaaraameynteedu ay soo degtay oo ribooyin badan baa jiray oo gaalada carabtii ay isku wada lahaayeen arrintaa markii la baabiyey ee ribadii meesha laga saaray waxaa soo baxday in dayn la isku lahaa qabaa'il isu qabsadeen maalan qoladii la odhan jiray bani camr ibni cumayr oo ka mid ah reer bani thaqiif oo qoladii daa'if deganaan jirtay iyo bani lmugiira ibnu makhzuum bani lmugiira oo reer makhzuum ka mid ah oo qurashiyiintii baa waxay isku qabsadeen ribo hore isku lahaayeen oo bani thaqiif baa markaa ribada dalbanaysa oo leh ribadii halana siiyo xoolihii wixii noo baaqiga ahaa halana siiyo kadibna qoladii kale banu mugiira waxay yidhaahdeen laa tu'adda riba bikasbi اlislaam mardii islaam iyo hawshaa la galay oo ilaahay xaaraameeyey ribadii xoolo riba lama kala qaato marka riba hadda la kala qaadan maayo qoladana xilmaya wixii baaqi noo ahaa wixii dambe hal la joojiyey hadda soo bixiya cataa bin usayd oo markaa magaalada maka mas-uulka ahaa waaligii maka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam warqad u qoray oo arrintaa uga warramayo labada qabiil xaaladda dhex taagan oo dayn ribo oo hore ku salaysan markii kitaabkii warqaddii rasuulka soo gaadhay
فوحى سودك آيات القرآن كان يا أيها الذين آمنوا كو إلهي رمييو اتقوا الله إلهي كبقى قلبي نعم سيدا الله كويناتو وذروا كتغا ما بقي وحا هري من الربا الربا وحي باقية وحي هرادي لو كلا بحي وحي باقية ربا أنا حقاضننا وإسلام كدحين الربا هكذا حقاضننا إن كنتم هداتهين مؤمنين كو إلهي سبحانه وتعالى رميصا marka aad ba loo adkeeyay dhinaca horena waa la cabsi geliyay oo taqwadii baa la amray dhinaca dambena in kuntum mu'miniin waa la abiyo shardiga iimaanka lagu xidho inta laga ma hadhin hawsh waa adagtahay hur ribo weeyaane fa in lam taf'alu hadii aydan samayn oo aydan ka tagin iska daynin ribada fa adanu ogaada ogeysiiskan qaata bi harbin dagaal ogeysiintii qaata min Allah xagga alla ka ahaday rasuulihi rasuulkiisa dagaal alla iyo rasuula ogaada marka muxaarib baad noqonaysaa oo ilaahay kula dagaalamaya qofka ribada cunaa waa qof ilaahay dagaal kula jira sida daraadeed maalinba dhinac baa lagaga imanaya mar maalka lagaga yimaado mar baabuurtu ka qalibanto mar xaaska hawshka kaga timaado mar xanuun iyo cudur lagu salido mar xagga awlaada laga soo galo iyo baraka daradooda iyo dhibkooda mar meel qof dagaal ku jira baata faadanu bi harbi min Allah waxa kale oo leeyahay harbigan aakhirana waxa la oranayaa ibn Abbas soo qaado hubkaaga dagaal baa jiray khud silaaxak soo qaado ilaahay la dagaalantide marka qofna ilaahay dagaalkiisa ma aqbali karo ribada marka dagaal ilaahay ogaada wayada deyn weydaan wa in tubtum hada toobad keentaan oo waxa ay ribada iyo xaaraanta ka baxdaan falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum maalkiina madaxiisii baad leedihiin oo raas maalkii hantidii baad leedihiin la tadlimuuna ciddulmi maysaano dheeraad qaadan maysaan wala tudlamuuna idinkana la idin dulmi maayo raasamaalkii la idin ka nuqsaamin maayo wixii dul saar ahaa meesha ka baxay marka halkanina waa halka ribada oo mar hadii riba meesha ay soo gasho oo ribadii dhacdo oo la arko in ribadii dhacday marka maxaa la sameeynaya ribadaas halkeedu waxa weeyaan inaadan wixii riba ah ee meesha ku haray baaqiya waa inaadan qaadan ka hadho maxaa loo bedelayaa raasmaal baa loo bedelayaa is raasmaalkii baa la kala qaadanaya wixii la isku lahaa maalka ra'sigiisa aha baa la kala qaadanaya wax ziyaada ana lagu dari maayo riba la saari maayo ciidan kalena la oran maayo maalkii raasmaalka waxa laga nuqsaamiyo lama dhahayo la tadlimuuna wala tudlamuun halkaas ayaa xal laga dhigay nabigeenu kaleey salaatu wasalaam barnaamijkaas ribada si fiican ayuu u cadeeyay oo u dajiyay oo xajjatul wadaac waa kii dadka la hadlay sida fiican uga la hadlay nabigu kaleey salaatu wasalaam ala inna kull riban ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحي ربا جاهلية هاي موضوع والدتشي حديث كالحلية تحت قدمي لقاهي قوستودا والله عاصي ربا دنبال اسم الله عد وحكولة مجرد ساعدها لقى بالعالم ساسو النبي وقوشها حجة الوداع أصحابته ribada ugu horeysa waxa leeyahay ru'uusu amwaalikum la tadlimuuna wala tudlamuun ribada ugu horeysa ee la tuurayaana waa ribadii adeerka Abbas ibn Abdul Muttalib ganacsadu ahaa dad badan taajiro wax kula oo ribooyin badan ay u xareysan yihiin marka iyada ugu horeysa gurigiisa xaafadiisa ayuu ka bilaabay oo riba ibn Hashim ayuu meesha ka tuuray sallallahu alayhi wasallam wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maysara wa in kana ay wa in wujida hadii la helo ذو عسرة مد وحلآن وصاحبة وباهي سجى هيسون وحبا هينين فنظرة سجد أيا أهاتي إلى أما فعليكم دشينا وحا نظرة سجد إلى ميسرة إلى وقت هضن تنمو إلى ميسرة إلى وقت يسرق يهضن تنمدا لسجوه وأن تصدقوا إن تصدق ديستان أيا خير إذين خير بدن لكم إذينك وعاد سجد ديسان وحوله بريشان إن كنتم هداتهين تعلمون كوا قرنيا ساس سمية ساس إذن خير بدنه هل كان الله سبحانه وتعالى حكوا ورميا قولدي هراء مركي ربدي اللي تشوشي راس مالك عدي لجاه لي وحال راس مالك هلقى قاضو لا تظلمون ولا تظلمون قفك راس مالك اللي جوايه حال سمينيا وذو عسرة وعو صاحبي عليس وحنتيا أو هيستوقف كاسي متشرو معسروي صعب ولا وحبا هينين كام حال جاي ليا حكم كذي قال بحيه فنظرة إلى ميسرة سجد وين أنت وحيليو هذا النقانيو
هلو كادي هل السوق تهل السوق marka taasi waa xaq uu leeyahay oo in la suga carabtu maxay oran jireen marka halka uu marayo ee mucsir lahayo imma an taqdiya wa imma an turbi ama iska bixi deynta ama ha kugu korodho hal ugu ziyaadiyo marka ziyaada ma jirtee ama iska bixi deyntii hadaan hayna hal la sugo way wa an tasaddaqu khayru lakum markaas hadana waxa la tilmaamay irshaad fiican oo ah mar haduu qofkan waxa uu haynin adiguna aad ganacsado tahay oo Ilaahay wax ku siiyay oo aad xaqla tahay ma iska deysidba oo sadaqadaysatid al-ibra hadaad bari yeesho oo iska dhaafto oo waxaan ku sadaqadaysato marada ogaatay inuu qofan waxba haynin yahay oo baahana ah inaad bari yeesho culayska saaran ee deynta ka rogto taas ayaa waxa weeye khayr badan in kuntum ta'lamuuna hada garanaysaan nabigeenu kaleey salaatu wasalaam wakiili man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal aakhirah qof culays saaran yahay qofka ka fudaydiya adduunyo aakhira Allah waa ka fudaydiya حديث كلام من سره أن يضله الله يوم لا ظل إلا ظله قف كيف فرح جرينس إن الله هركي هرسيو قف معسرة خوف ضيديو أو ليضع عنه ما هكذا كدتش وحكلوا سواء على حديث أورانية من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قف معسرة قف كحوله كف ضيدية وحليه مال والب أو بش مدة كف ضيدية ودب أوديجا من أنظر قف كدب أوديجا مال كسته وحكليه صدقة أنت إلا أجا حديث كلام مثلاه صدقة لو ميلو ميل صدقة كم حد هدي ومددي أنت المدد اللي جارينا وحنقول سوا مثله صدقة سقي وكلا صدقة مركا أجشي مددي أي تمادنا إلا ضعفنا مثلاه صدقة لو ميلو ميل وحكلوا صواع روري حديث كي ننكي تاجر كأهنبي كورمي عليه الصلاة والسلام مع البخاري بورينيا كان تاجر يداين الناس من تاجر ددك ديمسين جري فإذا رأى معسرا مركو قف معسر أركو قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا وحكو رنشر شقاليهيسا اسكا دافا waxa laga yaabaa innagana ilaahay iska keen dhaaf kadibna alla wuxuu tajaawazu anhu fatajawaz Allah anhu isagana ilaahay baa iska dhaafay xadiis kale waxa leeyahay malaa'igta la weydiiyay markaas la ninka dambiila su'aal wuxuu leeyahay tajaawazu anhu wuxuu sameyn jiray markii la ogaaday iska dhaafo oo idinkuna malaa'igay waxba dambiya u qabsanina marka taasina waa fadaaisha ay leedahay ku jirto wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu baqa yawman maalin ka'absada yawm kaaso turja'una laydin cirinayo fihi dhixdiisa ila Allah ilaahi thumma dadna tuwaffa ولو أوفينيا كل نفس نفكستا ما كسبت وحي أي شقيستي لو أوفينيا وهم لا يظلمون وهم إيجو لا يظلمون على ظلمين وحسنات كودينا وحوال لغا نقصامين حماني يدن بآني قلنا أن لقود الله عين وكرك لغا سارين هل كان مركا آيادا عبس قلنتا قيامها ليسكو عبس قلنا يو وحال لو قدن بيسيي ولو دبقلي آيات كالربادة وقفكو إنو أقادو adduunku inuu wax laga socdo marka hadaad ribadii hanti badan ka tacabto oo daara dhaadheer dabaqyo dhaadheer iyo xano hantiya aad ka tacabto oo tacab geliso la soco waad ka tagaysaa yawman turja'una fihi ila Allah maalin xaq alla leedin cilmiye baa jira sida daraadeed wixii aad ka tagtayna cid kala qaadanayso oo say ka yeelayaan iyo say ugu tasarrufayaan war wahayn adigana xisaabtoodii iyo ciqaabtoodii baa ku yaal marka maraday tahay wuxuu aad ka socoto adduun laga dhaqaaqay ay tahay xisaabta iyo culayska isku kordhinine waxa weeye xalaasho uun qaado oo ribada iyo xumaanteeda iskaga fogow aakhiro niyada ku hayo aayadani waxa aayadii ugu dambeysay baa quraanka soo digtay aakhiru aayatin nazalat min alquraan oo nabigu wuxuu sii noolaa koob iyo 30 maalmood dabadeedii qaarna waxay leeyihiin ma nabigu 9 liyaal 9 habeen markay aayadaas soo digtay 9 habeen buu nabigu sii noolaa calayhi salaatu wasalaam marka waa aayad u dambeysay waana dardaarano si culus bay aayadaas u dardaarmaysa waxayna nagu wacdinaysaa adduunkan iyo dhamaadkiisa iyo aakhiro iyo imaatinkeeda iyo xisaabta dhex taala ka dambaysa intaas marka in loo diyaar garoobo adduunkan yare na khayr laga sii shaqaysto la sii daba goosto aakhiradana waa la hubaay loo diyaar garoobo xisaabtana intaan xisaabtii weyneed la gaarin hadda la iska sii xisaabiyo dayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu aayadan waa aayadii deynka أطول آية في القرآن العظيم قرآن كآية أقول يا ريدوي الله سبحانه وتعالى مركز ورمي الربدة
iyo dembiyadeeda iyo waxa ay leedahay waxaa laga hadlayaa halkanna alqardu alxasan amaahda wanaagsan ee aan riba saarnayn waxba culays ku jirin iyo qiimaha ay leedahay iyo sharafteeda iyo wanaageeda ayaa Allah subhanahu wa ta'ala dadka ku irshaadinaya oo tusaya iyadoo marka laba nooc noqonaysa laba dhinac oo mid waa salam baa la yiraahdaa oo salamtu waa in lacagtii la bixiyo raasmaal ah kadibna alaabtii oo sifaysan oo tilmaamaheedii la garanayo la yiraahdo qofka waa lagu keenaya marka wuxuu iibsanayaa alaab aan lahayn oo loo keenayo laakiin tilmaanteedu caddahay raasmaalkiina uu golihii iibka uu ku bixiyay salam baa la dhahaa marka intaas oo alaab soo rar intaas oo bagaasha kaaga baahan intaas gaadiid noocaas aan kaaga baahan wixii buu qoranaya marka isaga waxa lagu leeyahay alaabtii oo sifadii leh inuu keeno marka waa deyn deynta marka waxa lacagtii waa la bixiyay alaabtii baa deyn dhinaca kalena qardi weeyaano alaabtii baa la bixinaya lacagtii baa la leeyahay marka yadana qofka oo deyn marka labada dhinacba waa deyn weey deyntaas oo dhan sidana Allah subhanahu wa ta'ala inuu toosinaya qaabka loola macaamilay يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يا أيها الذين كوا آمنوا ألا رمييو إذا قرت تداينتم كلا دين ستان أم استينسان بدين دين إلى أجل إلى مدة مصمم لما قعابي فاكتبوه قرأ مرد الدين مدلع قاعدتين هل قرأ وقرأ لها النقطة أرنتاس وليكتب قرأ بينكم رحلنا كاتب قرأ بالعدل سعدالة هو قرأ حق له يكحق اللي يقول لي منا أنا وكلا حن وحنا كبدلين هو قرأ ولا يأبى يديد كاتب مد قراءه أن يكتب إنه قرأ كما سدي علمه الله ألا أبري وإلهي نمع كسي مرض قرالك كبري قرضا كويا رتيان يوح بقري أقونين وحوي نمع هذا إلهي كل شكريو هديدنا أقرب عليه فليكتب قرأ وليملل هيريو الذي كي عليه دشيس الحق حق صارنا وكحق الولي هي بيريني marka wixii kaatibku qorayo qofka yeerinay ee wax ka hadlaya ka xaq lagu leeyahay way si arabkiisu iqraar iyo qirasho u noqdo waxay waxaas lagu leeyahay intaas lagu leeyahay waliyattaqillaha allaha ka baqo rabbahu rabbigi waa weynayn marka ilaahi rabbigi ha ka baqo marada wuxuu hanti iyo xoolo tahay ha iska ilaaliyo wala yabkhas yaanu ka dhimin minhu isaga shay an waxba yaanu markuu wax yeerinayo waxba yaanu ka qaldinay wixii lagu lahaayo dhan hawada yeeri fa in kaana haduu yahay alladhi ka alayhi dushiisa alhaq haq uu yahay haq lagu leeyahay haduu yahay safiihan mid safiih oo la sharay oo la xajray oo laga joojiyay muamalaadka inta xoolaha dayacay aw ama daciifan mid daciifa uu yahayo sida ilmo yar oo kale ama qof gaboobay oo kale aw la yastatiicu ama aanu awoodeyn an yumilla inuu yeeriyo huwa isagu مثلا لقد لغو hadlayo iyo wax lagu qorayo ma fahmayo falyumlil hayriyo waliyuhu waligiisu hayriyo bil adli si cadaaladana ha ku yeeriyo waligiisu waa kee waa cidii marka isaga mas'uuliyadda u haysa turjumaanka uu dirsaday ama ilma yar haduu ahaa waligiisi mas'uulka ka ahaa ama haduu daciif yahay cidii mas'uuliyadiisa lahayd wastashhidu shahidayn min rijalikum markii qoraal la isfaray ayaa halkan waxa la isugu daray makhraatiyalna in la sameeyo qoraalka lagu daro wastashhidu makhraati gashada shahidayn laba makhraati min rijalikum oo ragiina kamida oo rag ah fa in lam yakuna hadaanay ahayno joogin rajulayn labanin farajulun hal nin iyo wamra'atani laba dumara makhraati gashada mimman kuwa kamida tardawna aad ku raalitihiin ee min ash-shuhadaa makhraatiyal ah an tadilla li an tadilla inay lunto ama ilowdo an tadilla inay ilowdo ihdaahuma midood labadii dumar ahayd fatudakira ay xasuusiso ihdaahuma midood al-ukhra kale saasa dumarkii laba looga dhigay oo xagga dabdiga iyo xasuusta ayaa laga yaabaa inay dhamaystirnayn hays xasuusiyeen way hadii mid ilowdo waa cilada laba looga dhigay wala ya'bayidin ash-shuhadaa makhraatiyashu idaa ma goorta ducuu loo yeero oo la yiraahdo kaalaya makhraati gala tahammulka ama kaalaya makhraati fura oo adaha yeelabada midna diidin wala tasamu hakadalina an taktubuhu inaad qortaan hantidii sagiiran wax yar ahaaya aw kabiiran ama wax weyn ahaaya ila ajalihi ila muddadiisa hakadalina oo wax yar iyo wax weyn boqora wuxuu doonaa ahaade anaha xaqirina dalikum kinas oo inaad qortaana ayaa aqsadu cadaalad badan
عند الله ألا أكتيسة وأقوم يضع توصا للشهادة حق مخراتقنا يضع توصا ومخراتق دوحو قرية صحيحي وحصوصنا وأدنى يدا أدو ألا ترتابوا إن إذا شكينو هدو تحولوا ما أنتنا والله ما هو يا هولهاس وكب حيان قرالك يسولون قنسان إلا أن تكون إن تهيمو يانه تجارة جنعسي حاضرة تديرونها لك لو ريجيسان بينكم دحدين هذا وحا لك لو ريجين مركبة هاي وأن يوم مدو باهنين تاس يدو لب مله إن فليس عليكم يشين معها جناح وحدا بيا الله تكتبوها إن إذا قرين وأيضا إسكديسان وحديبا ماله صوابته وحي اللي قبقي اللوجها أما نزاع يمرنكا مش وكب حيان وحي هذا بلا لك الوريجي وأشهدوا مخراتي قشدا إذا تبايعتم مركز وحكي لإبسانيسان هذا قرالك اللي يسكدايا لكن مخراتينا وحكلا مخراتي قشدا ولا يضار يا الله ديبن كاتب إيو ولا شهيد يا مخراتي تونا أو يا الله ديبن معناه ذو حويان كاتبكي يا شهيدكي يا الله ديبنو وح عن مخراتي أقل من يا الله دير أما مرك اللو يري دنا إليهم كشيران دبها الله يقول له يا الله ديهن دنت هذا أنت فرح كقاضو أمر باكو هايست إلهي باكو أمره كاله يخصب نوقف مخراتي يا الله قولي إن عكلنا ولا يضار يدبن كاتب قرائي ولا شهيد مخراتي تونا عدي حق الله هذه يدبن يعدي حق اللي يقولها مدنا وهنتدو ذي يوحي أما مخراتي إن الديدان أما إن يصير الربع حقوق رواية وحكي خلدان وإن تفعلوا حدات سميسان أو دبكاسي ما دول يسلبه فإنه أرنكاسي فسوق فاسق لما أيو إذن كيهي بكم إذن كأدن بأدقشين وي والله إذن قبسنا يو واتقوا الله إلهي كبق مؤمنين ويعلمكم الله ألنا وحبو إذن بريا وعلم بإذن سينيا مركز كبق دان والله ألا بكل شيء وحكستا عليم ألا علم أوله وأقوي